xogayaha guud ee isbahaysiga neto Jens Stoltenberg ayaa sheegay in haddii waanwaanta aan rasmiga ahayn ee laga dhex waday Ukraine iyo Ruushka ay shaqayn weydo inay u muuqato inay xaaladdu faraha ka baxayso dagaalka halkaasi ka socda. Ukraine dagaalka ka socda waa mid foolxun ayuu yidhi, waana dagaal isu bedeli kara neto iyo Ruushka. dadka qaar ayaa laakiin aaminsan in dagaalkani marka si loo eego iminkaba neto qayb ka tahay. xogayahan ayaa sheegay inay maalin kasta ku howlan yihiin inaanu dagaalku faraha ka bixin. xogayaha neto oo hore uu ahaan jiray ra'iisul wasaaraha dalka Norway ayaa sheegay in haddii dal ka mid ah isbahaysiga neto uu dagaalka qayb ka noqdo inay xaaladdu si weyn isu bedelayso oo ay faraha ka bixi doonto. isbahaysiga neto oo iminka Ukraine hiil iyo hoolba la dhinac taagan ma ka maqan yihiin dagaalka Ukraine. Ruushka jawaabtiisu waa maya. injineer Axmed Warsame Artidoon ayaa isaguna sidaasi qaba. waa maadsantahay cabdixaafid. runtii kama maqna oo nato haddayba ma garanaysaa dagaalka qayb bay ka yihiin, haase si indirect ama si dabam baan idhaahde. marka runtii way tababaraan, hubbay siiyaan, weliba noocyo ma garanaysaa ruushka dhibaato weyn u geystay gudihiisana gaaraya ayay siiyeen. dhaqaalahay bixiyaan, siyaasiyan, si amniyan ah, si mataqaana dhinac walbaba way ka taageeraan. dowladda ruushka waxay marar badan ku eedeysay isbahaysiga neto inay dagaalka qayb ka yihiin, maadaama oo ay Ukraine siiyaan hub, tababare military, ayna sidoo kale ka caawiyaan dhinaca sirdoonka iyo meelaha ay ka weerari karaan ciidamada Ruushka. waa intee suurtagalnimada in dal ka mid ah isbahaysiga Ukraine uu dagaalka si toos ah uga mid noqdo? waa kan mar kale injineer Artidoon. runtii waa adag tahay sababtoo ah dagaal nato iyo ruushka oo isfara saara waxay keeni kartaa dagaal weyne lagu hoobto. wayna ogyihiin dagaal ruushka toos ay wadamada nato ula galaan inaan cidro ku guulaysanaynin. ruushku waa wadanka ugu nuclearka badan adduunka. nuclear casriyana waa haystaa sida iyaguba ay dhowr jeer qireen, laakiin waa midaan laga faa'iidaynin, labada dhinacba aysan dan ugu jirin. inta laga leexleexan karana laga leexleexana. waxaan rabaa inaan xasuusiyo daawadayaashada mataqaanaa VOA-da in hadda ka hor xataa gantaar uu ku dhacay wadanka Poland, ay Ukraine sheegtay in ruushku soo riday, in nato ay diiday oo ay tiri ma garanaysaa ruushku sooma ribin. haddii kale waa in ka article 5 la adeegsadaaho waxay noqonaysaa wadan nato ayaa weerar uga yimid xagga ruushka, marka waa in lala dagaalo. marka waxa weeye lagu dhiiran maayo arrintaas. haddiiba neto dagaalka Ukraine iyo Ruushka ay qayb haddaba ka noqoto, saameyn intee leeg ayuu adduunka ku yeelanayaa dagaalkaasi? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. dabcan waa arrin aad u weyn, waa arrin khasaaraheedu aad iyo aad u ballaaran yahay buu noqonayaa. dagaalkii saddexaad ee dunidu noqonayaa. dagaalkii labaad ee isaga la midka ahaa ee ugu dambeeyey khasaarihiisu intii uu leekaa in aad iyo aad uga weyn buu yeelanayaa, sababtoo ah cududa militariya wadamadan waa kortay. sancada militariya iyo hubka la isticmaalaya koray oo intii waagaa 70 sano ka hor jirtay aad uga xoog weyn. in nuclear ba la isu isticmaalo iyo hydrogen bombs ayaa suurtagala. laakiin haddaan xitaa taa laba isticmaalin oo wadamadu ay dareemaan haddii ay ridaan in iyagana lagu ridaayo oo lagaba warwareego, khasaaraha kale uu keenayo dagaalka noocaasi ayaan mid sinaba loo cabiri kara ahayn. dhaqaale ahaan, dad ahaan, kaabayaasha dhaqaalaha, wax kastaba waxaan noqonayaa global oo aad buu dunida ugu baahayaa. marka reer galbeedku taas bay ogyihiin, sababtaa darteed baanay u doonayaan in laga fursado taas. sababtaas darteed bay Ukraine u siinayaan waxaanoo taageero ah si aan taas loogu baahanin. marka runtii haddii ay arrintaasu dhacdo, arrin sinaba loo cabiri karo ma loo qiimeyn karo ma aha khasaarooyintu leekaanayo. iyada oo xiisadda u dhaxaysa reer galbeedka iyo Ruushka ay meeshii ugu darayd marayso, ayuu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin carabaabay inuu ka fakarayo inuu isticmaalo adeegsiga fikradda Maraykanka ee weerar ka hortaga. haddii ay taasi dhacdo, waa bilowga dagaal foolka fool ah oo dhex mara Ruushka iyo isbahaysiga neto. waxa kale oo laga cabsi qabaa in ay tani kalifi doonto in dagaal baaxad leh oo la mida dagaalkii labaad ee adduunka uu ka dhaco adduunka.